Greetings, citizens of the world. We are anonymous. We have an important message for you. This is the world that you know. madaxweyne farmaajo dhawaan waxa uu ku dhawaaqay inuu sameynayo ciidamo uu ku magacaabay ciidanka difaaca shacabka. ciidanka ayaa waxa hogaamin doona Sheekh Muqtaar Roobo, Abu Mansuur, Sakariya Ismaaciil iyo Abu Muslim oo dhammaantood ka soo goostay Al-Shabaab. haddaba taariikh yar aan dib ugu noqono si aan wax badan uga ogaano ujeedka ciidankan laga leeyahay. Xashd al-Shacbi waa maleeshiya abaabulan oo u badan Shiicada Ciraaq. waxaa la aasaasay 2014 kadib fadwo ka soo baxday Sheekh Cali Xuseen al-Sistani. ujeedka laga lahaa waxay ahayd in lagaga hortago Daesh oo kalka ku soo dhawaanaysay Baghdad iyo deegaano kale oo Shiicada Ciraaq degto. dawladda Ciraaq waxay u isticmaashaa arrimo kala duwan iyadoo mararka qaar lagu weeraro kooxo siyaasadeed. hadda waxay hoggaan u yihiin weerarka Kurdiska Ciraaq ka dhanka ah ee ka socda dalkaas. haddaba dawladda Iiraan oo hadda xulafo la ah Qatar ayaa waxay gacan ka geysan doontaa tababarka iyo abaabulka ciidanka difaaca shacbiga Soomaaliya, waxaana laga tusaale qaadan doonaa qaabka maleeshiyada Xashd al-Shacbi. waxaa xiriiriye u noqonaya Fahad Yaasiin oo dhaqaalaha, taakulada iyo hubka loo soo marsiin doono. ciidankan ayaa la sheegay inay xasilin doonaan Muqdisho iyo labada Shabeelle, kadibna ay si tartiib ah ugu gudbi doonaan gobollada kale ee dalka. farsamada iyo taktikada howlgelinta ciidanka ayaa laga dhigayaa inay Al-Shabaab la diriiri doonaan, laakiin ujeedka dhabta ah ee ciidanka ayaa ah in lagu maquuniyo wax loogu yeeray awoodaha qarsoon iyo mucaaradka dawladda, kadibna loo gudbo maamul goboleedyada. sidaas oo ay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa 33,000 bilihii u dambeeyana wax mushaar ah lama siin. waxay boqonta goysaa bahda wada jirkeede waxay boqonta goysaa bahda wada jirkeede allah awlaadi bana bana allah awlaadi bana waxay boqonta goysaa bahda wada jirkeede waxay boqonta goysaa bahda wada jirkeede allah awlaadi bana bana allah awlaadi bana